Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalka Saliika. Waxaan sharxaynaa tenniska afraad taasoo micnihiisu yahay markaas fast continuous tennis. Dhacdada socotay tagtay alla markaasi tenniskan afka Soomaaliga si loo fiiriyo wuxuu la xiriiraa markaas waa tenniskii saddexaadka afka Soomaaliga laga fiiriyo. Tusaale waxaa la markaasi idiyada useful waxaa loo isticmaalaa an action ficil which kaasoo was happening kaasoo dhacay in the past time waqti laga soo tagay. Marka tenniskan waa macna waa hadal ficil laga soo tagay kaasoo marka hadda aan dhamaystirnayn oo socda. Waan arkaynaa example ku arkaynaa ruulka sharciga marka xanaaqna waa subjective plus was slash were plus verb plus ing plus objective. Marka ruulka saas oo noqona pronouns waxaa ka mid ah markaas you, we iyo you, we, they iyo I ka mid ah waxay qaataan dhamaantooda were ay qaataan you, we, they waxay qaataan were ay qaataan. Tusaale markaasi wixii waa kuwa plural ah. You adiga were drinking waxaad cabaysay water. Tusaale qof biyo cabaya kasoo tagtoo kale ama agtiisa aad joogtay aad la hadlaysay kale. Hala markaas maxaad ila hadlaysay oo qofku ku dhaw kale adigu waxaad cabaysay biyo kale ilaa qofkii biyuhu cabay laakiin muusan dhamaystirin. Marka you adiga were drinking water adigu waxaad cabaysay biyo. Waxaa la markaas we were standing in front at our school. Anagu waxaynu taagnayn iskuulka caawi hortiisa. Lambarka kale waxaa noqonaa markaas jumlada kale iyagu swimming waxay ku duwaanayeen in the sea badda. Marka she, he iyo it waxay qaataan he waxay qaataan marka waxay qaataan was ay qaataan she-yada was telling a liar yesterday. Iyadu waxay ii sheegaysay shalayto waxaa la markaas been ay ii sheegaysay marka. He asaga was celebrating asaga wuxuu u dabaaldegayay the final alla markaasi finalka ayuu u dabaaldegayay. It iyada was running iyadu waxay u hordeysay people dadkii ay ka hordeysay. I was inviting teacher Saliika waxaan casuumaya alla markaasi macallin Saliika ayaan casuumayay. Waxaa inoo sii xiga markaasi qaabka loogu bedelo questionka statementiga iyo next questionka marka I anigu was speaking waxaan duwayay a bread roti alla markaasi qofkani roti laakiin dubitaanka muusan dhamaystirin hadalka meesha ka dhamin kartaa marka I anigu was speaking waxaan duwayay a bread roti alla markaasi waa hadal iska caadi ah marka programka ku soo wac maxaa sameynaysa mar alla wuxuu dhahay markuu ku jawaabay markaad isoo wacaysay aniga waxaan duwayay roti. Waxaa la markaas was I baking a bread aniga roti miyaan duwayay. I was not baking a bread aniga ma duweynin roti. Was not I baking a bread aniga ma duweynin miya roti alla markaasi. Waxaa la markaasi do adresska fadlan dadka cusubka subscribe inoo saar like inoo saar naga xasidin si ay mar walba warbixin walba program ku saabsan baasfase nafta ku soo gaarto maasanid. Waxaa la markaasi do adresska iska samee mb tusaale marka the past continuous tense alla markaasi tenniska afraadka ama dhacdada xaadirka ee tagtay socota. Haddana markaas simple past tense alla markaasi dhacdada tagtay alla markaasi ee fudud waa simple aska fudud is often badanaa used waxaa loo isticmaala together si wada jir ah in one sentence alla markaas hal jumlad. Waxaa la markaas the past continuous tense alla markaas waa tenniska afraad describes wuxuu qeexaa an action ficil that was going on fahmay taasoo ay soconaysay. Tusaale anigu waxaan duwayay roti ficilkii muusan dhamaynin macna dubitaanka rootiga wadaa marka andayo the simple past tense alla markaas tenniskana saddexaadka alla markaas ama dhacdada tagtay ee fudud describes waxay qeexdaa the event dhacdada that happened taasoo ay dhacday. Tusaale meesha waxaa ku jira waxaan duway camal lama tahay ilaan dubitaanka ninka qaar ka wadaa. Okay waxaa la markaasi bond alla markaasi in a past continuous is often introduced. Waxaa la markaas tenniska afraad amba socotada alla markaasi tagtay badanaa waxaa lagu baraa by conjunctions macnaha lagu xiriiriyaa alla markaasi isku xire like sida just as a while as a when and it's waxaa la mid ah. Tusaale waxaa la markaas I was going in the market anigu waxaan u aadayay suuqa alla markaas before ka hor it iyada began to rain intaasan bilaaban roobka. Fahmin macnaha waxaan aadayay suuqa intoo bilaaban roobkooda marka. She cried iyadu waa ooysay under the bed iyadu waxay ku ooysay sariirta hoose waa tennis saddexaad while halka
I was watching TV goortii aniga aan daawanay TV-ga marka. Okay, he asiga broke a new cup. Asiga wuxuu jebiyey koob cusub. When I was writing a lesson goortii aniga aan qorayay cashirka. As you was waiting me sida adiga aad ii sugaysay. She lose her time. Adiga waxaad lumisay iyadu waxay lumisay waqtigeeda. I was waiting waxaan sugayay my dad aabahay when goortii she iyada knocked at the door goortii iyada ay soo garaacisay albaabka. Halkaas waxaa inoo muuqdaa tenniska afraad. waxaa inoo xigi doona insha Allah tenniska shanaad hadduu alla karaali noqdo. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe ina saar like-na waa inoo muhiim si ay mar walba warbixinta inoo soo gaarto. wixii concept ah comment qaybta hoose inoogu reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.